muhiimadan muuqaalkaas u soo geliyay waxay ahayd inaad muuqaalkaas aadan ka noqon daawada aad ka noqotid barte commentiga markaan aqriyo boqolkiiba 99 dadka waxay ahaayeen negative oo ma aysan fahmin cashirka ama muuqaalkaasi ay soo degsadeen applicationkii wax lagu jabsanayo laakiin si fiican ama boqolkiiba boqol ah uma aysan fahmin muuqaalkaani waxaan kugu fahamsiin doonaa si degdeg markii aad fahamtidna muuqaalka like saar kadibna si ficil ahaan ah u sameey cashirkii ama wixii aan ku fahamsiiyey ugu horeyn labada application LB iyo Mega TBS VAB labadaba soo degso hadda applicationka Mega TBS VAB wax hacking ah ama wax jabsi ah kuma aanan sameynin waa sida aan u soo dejiyay markii aan VAB da galo lacagtana ayuu ii soo saarayaa markii aan lacagta ku dhuftana wuxuu leeyahay bixi lacagtan si aad u heshid shaxdaas VAB da ah gadaal ayaan u soo laabtay applicationkii LB ga aan wax ku jabsan lahaa ayaan imaaday waxaan kaaga soo dhigayaa bilow okay ku dhufo applicationka LB kadibna waxaad dhahdaa no sida tan markuu ku keeno waxaad raadisaa applicationkii aad u baahneed inaad hackingka ku sameyso markii aad halkan timaado applicationkii targetka ku ahaana aad ku dhufato sida tan ayuu kuu soo saari doonaa kadib waxaad ku dhufanaysaa ama aad riixaysaa halka aan hadda falaarta kuu saaray ee menu ay ku qoran tahay kadib create modify IPK file ayuu kuu soo qabanayaa kadibna waxaad siinaysaa click oo mar labaad aad ku sii dhufanaysaa create modify IPK file markii aad ku dhufato si automatical ah wuxuu kuu keenayaa halkaani indhahaada u muuqda okay waxaad ku dhufanaysaa halka aan hadda falaarta kuu saaray ama IPK okay kadibna waxaad ku sii dhufanaysaa the application okay waxaa halkan ku qoran long time waxaad sugtaa waqti dheer ama waxoogaa yar u dulqaado inta processka ama hackingka laga sameynayo okay muuqaalka marka marabo inaan pause geliyo sababtoo ah haddii aan pause geliyo dadka qaarkood shaki waxaa galayo ninkan wax kaleeto aan adinka aadan arkaynin amuu sameynaya anigoo shakigaas taasoo dhan ka duulayo muuqaalka wax pause ah ma gelinayo si toos ah sigaa isku hacking gareynayo si live ah waxaan rabaa marka aad muuqaalkan daawato isla markii inaad ficil ahaan u sameyso aad ku guuleysato aad jibiso okay waxaad taawataa halkay ku qoran tahay go to fail waa inaad maqashida muhiim ah kadibna install meesha ku qoran tahay midda ka hooseysa ee reinstall ku dhufo oo riix sababtoo ah waxaan rabnaa applicationka inaan banaan ku saarno haddana aan soo celino okay dheh kadibna waxaad sii dhahdaa uninstall ama okay applicationka hadda wuu istirayaa banaanka uu dirayaa mobilkeena dhan uu ka saarayaa haddana asiga ee hadan soo celi ku dhahayo sababtoo ah applicationka shaqadii aan ka lahay waan ka qabsaday ee soo celi waa kana sida u jeedid soo celi ayuu ku dhahaa okay install adhaysa oo israadinaya muhiimadiisu waa intuu applicationka soo degayo inuu howl kaleeto ka leeyahay inuu ka qabsado si automatical shaqadeen hadda waan ku guuleysanay successful hadda waxaan tagaynaa applicationkii haddaay xujada nagu xirayna dhahayay bixi $20 $10 $30 bal aan aragno lacag inoona weydiiyo iyo in kale qaybtaani waa qaybta freega ah marabna qaybtaan waxaan rabnaa VAB da okay VAB da ayaan imaanay waan ku dhufanay okay weli wuxuuna leeyahay lacag bixi okay lacagta ku dhufabo aan ka war doona lacagta sida u jeedid applicationkii LB ilkoo ku qaatay lacagta bixina la lahay si automatical ah shaxdi nagala iibin lahay ama lacagta noloo aan ku bixin lahayn waxaan ku helnay qaab free ah waxaan rajeynayaa inaad fahantay sidoo kale mar labaad haddii aan ku laabano mar walba sidaan ku weydiinayaa lacagta markuu kuu soo saaro lacagta qiimaha ugu badan ku dhufo applicationka ilkaha ku qaadanaya kadibna waxaad dhahaysaa okay hadda successful
waan jabsanay applicationkii si free ayaan ku helnay. Okay, ugu dambeyn shaqadeeni waan dhameynay, applicationkii waan jabsanay. Adiga hadda muuqaalkani daawanayo, orod tag soo tijaabi waxaan ku baray. Sidoo kaleetana applicationka LB waxa lagu jabsaday iyo midkan Mega waxaan ku dhigayaa descriptionka, halkaasi kala soo deg.